waxaad dareentay in Abriil aysan mar dambe ku jeclan sidii hore waxaad shaqadaada uga dhigtay marmarsiyo si aad ugu dhawaato haweeney aad wada shaqaysaan waxaad bilowday inaad u muujiso xiiso filarti iyo calaamado qarsoon arrintan waxay u dhacday sida aad rabtay si degdeg ah u dareentay qoommo iyo dambi kadib waxaad samaysay markii aad guriga timid adigoo iska dhigay inaysan waxba dhicin waxaa Salim Falana ku sugayay Abriil oo si qurux badan u labisan waxay ku diyaarisay xaflad dhalasho oo gaar ah qalbi leh carruurta ayaa ku heesay Daddy, happy birthday to you. Happy birthday. I love you, Daddy. I love you too. aad ayay ku taabatay indhaha ayaana ka ilmeysay isla waqtigaas waxaad dareentay dembi iyo ceeb qoto dheer waxaad ku fikirtay inaad tahay 30 jir oo leh guri gaari caruur iyo intaba waxaad garwaaqsatay inaad ku qaldan tahay raadinta xiisooyin aan macno lahayn waxaadna go'aansatay inaad saacdo qaladaadkaaga ficil daba maalintii xigtayna Walkerka ayaa si xamaasad leh ku casuumtay waxaadna si degdeg ah u diiday casuumaadaas isla waqtigaasna waxaad u degdegtay tiyaatarka si aad Abriil u soo qaado laakiin Abriil waxay ahayd qof qabow oo haddana xanaaqsan sababtoo ah bandhigeedii jilitaanka waxay kala kulantay dhageystayaal qabow aan xiiso lahayn waxaad aragtay inay dhaawacan tahay waxaadna isku dayday inaad niyadeeda kor u qaado oo aad taageerto waxaad si daacad ah u sheegtay inaad ka xun tahay inay ku dhex jirto jilaayaal aan xirfad lahayn Abriil waxay u fasiratay hadalkaas inuu yahay jees waxayna ku tiri waad hadal badan tahay wiilu markaad aragtay inay si xanaaqayso waxaad joojisay gaarigaaga si aad u dejiso xaaladeeda waxaadna isku dayday inaad siiso habsiin Abriil ay si xoog leh u xanaaqday waxa ayna ku tiri waaridsiida waxaad aamusay mudiyar kadibna waxaad qarxisay dareenkii aad qarinaysay waxaad ka cabatay inay mar walba muran bilowdo waxaadna sheegtay inay dadka kale ku eedeyso fashilkeeda waxaad ku dooday in dhibkeeda uusan adiga shaqo ku lahayn waxaad tiri waa inaad ka tagtaa masraxaas aan meelna u socon hadalkaas ayaa si xun u dhaawacay Abriil waxay furtay albaabka gaariga oo si xanaaq leh u degtay adiga ayaa isdejiyay si aad xaaladda u xakamayso waad raacday si aad u dejiso dib aad ugu soo celiso gaariga Abriil waxay sheegtay inay rabeen inay arrintan ka hadasho adiga ayaa diiday inaad mar kale aamusnaato murankii ayaana mar kale qarxay daawadayga sharafta leh intaad ila soo gaartay muuqaalka Ilaahay inay like saarto kadib waxaad ku adkaysatay in markani aad saxan tahay kani waa mar aad ka bixayso inaad qalbiga iska bedelato wax walba oo aan sheegan Abriil tanina waxay dhacdaa hal mar oo kaliya waxaad ku tiri in had iyo jeer waxyaabo qaluuciso waxaadna sidoo kale tiri waa inaad guri joogtaa marka aad jiran tahay Abriil wuxuu ku jawaabtay erayo aad u culus waxay ugu yeertay qofnimadaada raganimadaada waxayna ku tilmaamtay wiil isqiyaameeya qof dadka xakameeya waxayna sheegtay inay ku qabatay dabin Me, Frank, me! Don't make me laugh! Pathetic, self-deluded little boy! Look at you and tell me how by any stretch of the imagination you can call yourself a man! murankan wuxuu gaaray heer aad u daran oo shucuur leh ugu dambeyntii waxa ay dib ugu laabteen gaarigoodii aamusnaan gaaban ayana dhacday labadiinaba waxaad ogtihiin intani aysan ahayn markii ugu horeysay waxaad sidoo kale ogtihiin inaysan noqon doonin markii ugu dambeysay sababta aad u dejiseen xaaladda waa carruurta darteeda subaxdii xigteen waxa ay samaysay jadwalkii caadiga ahaa inta aadan bixin oo shaqada aadan waad istaagtay waxaadna dib u egtay guriga waxaadna dareentay jahwareer qoto dheer waxaad isweydiisay sida noloshu halkaas ku gaartay waxaad ka shakisay haddii aad rabto inaad ka tagto guriga ama aad ku soo laabato kadibna waxa aad dib u xasuustay markii ugu horeysay aad Abriil kula kulantay markab dalxiis waxaadna xasuustay jaceylkii iyo xiisihii hore waxaadna garwaaqsatay in waqtigu wax walba bedelay jaceylkii hore wuxuu isu bedelay daal iyo nolol caadi ah oo culus